حق ربي كتمي وهي الشعب وهي هرجيسة ومن نمو مداد وشعب كي وطوري هريدي قبيلة ده وقول له دلي هاي والله كلا هاي ويشني ودمات كي من كستا أو سياسي كو قبيلك يكل با انتو قفا إيمان قرني دحي ما دين طلائي يراهدو أو كرسي بيسكفولو وحصلوا كلا أي سود بجريسي قوشني إن أريد أن بوجوان كجار مشرح هذا أما قفك أمضى نسوس وشرحها شعبي واحد شبيسين جارجوين ومضى كور تاجنين يوصل بحنه جميل ونكسن أول سمين كرا ما أنت سيرادو أريسين وحيفور يساتشر أسبوع الله مريدونه كراس تغرقها وعصروا كل حقيقة سنتين قب هرو ويدي سياسي جيسيا ولهر يماده أركتيسا هنكيسا برنامج كيسا هلكي وكلا هرم الله طلعي ما أنت وحي كدن بيا قفك الدولي إنه سياسي نغلا وعروض درتين فرين إنه سياسي ومد لهر يماده هنكيسا كرتيسا أفكارتيسا مبادئيسا aqoontiisa halkii uu kala horiman lahaa tallaaye iyo qabiil waxaad dirteen fariin kale oo dadban oo ah qofka aad jeceshihiin inuu maayar idin noqdo hadalkiisa ayuu sii watay waxana uu mar labaad u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu soo baxo waxaad ahay qof weyn oo ku adag tahay inuu kuyuu dheer galo iyo inuu ii istaago milicda waad se u samirtay oo waad u adkaysatay si aad iigu odayso waanad mahadsan tahay waxaad ahayd hooyo waxaad ii soo dayacday gurigaagii iyo carruurtaadii si aad iigu odayso waxaad ahayd umul aan afartan bixin waxaad u soo baxday inaad ii odayso waa mahadsantiin dhalinyaro waxaad iiga leexateen qabiilooyinkiinnii waxaad iiga leexateen waalidiintiin waxaad u codayseen isbeddel waa mahadsantiin waanan idin ogahay waxa uu sheegay inuu dadaal dheer u gelayo saacadaha soo socda inuu ku guulaysto maayirka magaalada Hargeysa oo uu horeba u sheegay inuu u sharaxan yahay saacada laga bilaabo iyo maanta oo la joogo waxaan gelayaa dadaalkeeda in aan maayir ka noqdo magaaladan aynu jecelahay ee Hargeysa codka aad bixiseen ay siiseen waa fariin aad u dirteen madaxda qaranka waxaana rajaynayaa in madaxda qaranka iyo asxaabtuba ay qadarin doonaan rabitaanka shacabka iyo doonista shacabka waan ogahay in taageeradiina iyo codka ay siiseen ee dhan 26,299 cod in lagu yahay xujo weyn waan ogahay waxaad iga filaysaan ilaahay ayaan ka baryayaa inuu igu asturo waan idin jecelahay qabiilkaa doonto ahaw xaafaddaa doontana deganow aniga ayaa ku matali doona aniga ayaa baahidaada ka hadli doona aniga ayaa noqon doona hiilkaaga aniga oo ka jawaabaya inaad ii hiilisay 31 May anigana iga filo 5 sano soo socota inaan hiilkaaga ahaado waxaan ahay mudane dowladdeedan maanta ee huwan codkii ugu faraha badnaa ee dadka reer Hargeysa iyo reer Soomaalilandba ay bixiyaan sidaa la ajrigeed waxaan ahay mudane qaran waxaan mudane u ahay ummadda Soomaaliland oo dhan iyo gaar ahaan reer Hargeysa ma noqon doono mudane ku sultan qabiil gaar ah xaafad gaar ah iyo koox gaar ah rumaynta rajada shacabku waxay ahayd astaanteenu ololaha waxaana iga go'an inaan ka dhabeeyo oo aan rumeeyo riyooyinkiina iyo rajadiinaba musharax Cabdikariin Axmed Mooge oo hadalkiisa sii wata waxa uu fariin u diray musharaxiintii dhacay sidoo kale taageerayaashooda waxaan sidoo kale qof kasta oo maanta go'aanaya ama tabanaya in xaafadiisa aan u soo bixin mudane inaan u ahay mudane matalaya isaga waxaynu kor yeeli doonaa sinaanta waxaynu kor yeeli doonaa wada noolaanshaha waxaynu kor yeeli doonaa reer Hargeysanimada
waxaynu soo afjari doonaa oo halgankeedii sii wadi doonaa qabiilka iyo qoloqolada waxaynu samayn doonaa reer hargeysanimo waxaynu samayn doonaa ummad la yidhaahdo somalilan oo isjecel is aqbashay waxaanaynu ahaan doonaa siyaasi ku soo baxay aragtidiisa